السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا ولا ليال جنكين واحد بكريبتو ولكن محمد جامع إن شاء الله قضبضة سوق السامية إنه داتو أينو كود هذا الدونا تاسو السوق إذا أنتوا بدانو دن أي هوسو دعوين سميين سببها سو أي كمديهين دجالك روشيا يوكرين يسعر بر الوالن أو عالم كودن هايسته دهب كوسرو كعي يبترولكا لكن انتينا بلابن وحنا نقعد صن لها maadaama sicir barar waala uu caalamka ka dhacayo inkan waxaan naga codsan lahaa like sicir barar ku sameeya oo like insha Allah noo badiya iyo subscription-ka ku soo dhawaada haddaynu wararka ku bilowno reer galbeed ka soo baxaya waxaanu aragnaa ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ruushku inuu plan garaynayo dagaalkii ugu weynaa ee Yurub ka dhaca since 1945 marka saraxatan arrin aad iyo aad warwar marketyada gelinaysa weeyaan haddaynu dahabka yara dul istaagnana waxaanu arkaynaa inuu dahabkuba muddo dhaweyd sarakac weyn u sameeyey taasoo dahabku imika ku wajahan yahay 1900 hadduu taana jibiyo waxay la tahay inuu gaadhayo 1950 ilaa 2000 inuu gaadho waa macquul haddaynu yara dul istaagno petroolka caalamkana waxaanu aragnaa in muddo aba inuu sarakac u sameynayay petroolka caalamka taasoo baanan fara badan oo caalamka ka mid ah sida JP Morgan ay sheegeen inuu gaari doono $100 baanankaasina saraxatan history xun bay leeyihiin marka taariikhda dib loo noqdo waxaad moodaaba in ay iyagu dagaaladan iyo balaayadanba ka dambeeyaan xaalka dollarka Mareykanka haddaynu eegno waxaynu aragnaa inuu asna sarakac u sameynayo baarahaasoo dhan intooda badan bil ka hor ayaan fiideogan aad aragtana ku soo sheegay marka wax isbedel saraxatan kama jiraan suuqa dagaalka Ukraine iyo Ruushku waa soo yara kordhay mooyaane wax kale ma jiraan qodobadan inta ugu badan oo dhawaan ka hadlay dib baad ugu noqon kartaan channelka linkigana insha Allah wayni soo dhigayaa xalaqadan kaga hadlay stockada caalamka kala duwan haddaynu eegno S&P 500 ka Ingiriiska amba boqolka shirkadooda ee ugu weyn Ingiriiska iyaduna inay sarkacay sameeynayay imakana reversal ay dib loo soo celinayo ayaa ila muuqata marka taasina waa wax laga taxadiro suuqyada Mareykanka haddaynu eegnana waxaynu aragnaa in eegaba ilaa January 3 hoosa loo soo waday wax ka badan bilyan dheeraad iyaduna marka insha Allah laga taxadiro kriptada oo aynu kuna danaynayno waxaynu aragnaa Bitcoin imika muddo ilaa 3 bilooda in hoos u dhac ku jiray imikana waxaad moodaa inuu eriyooyinkii hore ee 30,000 ugu soo celinayo taasoo haddii la jabiyo aan u malaynayo 21000 in laga soo laaban karo haddii dee la samax Allah balaayadan iyo dagaaladan ay sii socdaana ilaa $10,000 inuu gaari karo waa macquul marka waxaan oo dhan waa possibilities waa wax loo malaynayo inay dhici karaan laakiin cilmiga Ilaahay baa leh qodobada kale haddaynu eegno ee saamaynta suuqyada ku leh waxaan oranaa Ingiriiska inuu sicir bararkii ugu weynaa 30 sanadood uu gaadhay taasoo percentage lagu qiyaasayna ay tahay 5.5% Mareykankuna sidoo kale 40kii sanadood ugu dambeeyay sicir bararkii ugu weynaa ayaa ka dhacaya imaka 7.5 reer galbeedka oo Yuruba ayaguna 3.5% weeyaan inflation-koodu amba sicir bararka ka jira dowladaha reer Yurub haddaynu eegno coinka inta kalena Ethereum oo kale waxaanu aragnaa double top inuu soo sameeyay weekly time frame kan jooga almost coinka dhan waxaad moodaa inay double top ay soo wada sameeyeen ugu dambeyntii walaalay waxaan uga codsan lahaa hadda ilaa hay'adii aad la soo gaadheen linki baan soo dhigayaa hoosta linkigaasoo aan plan gareynay insha Allah dhawaan inaan sameeyo course ku saabsan cryptocurrency-ga oo complete ah taasoo inaga codsanayo inaad survey-ga aad ka qayb qaadataan oo magaciina email-kiina iyo qiimaha munaasibka aad u maleynaysaan amba aad ku qiimeyn kartaan inuu halka igu soo qora course-gana waxaan u sameynayaa walaalo far badan oo ku cusub majaalkan ayaa igu codsaday inaan course-an sameeyo marka inkoo mahadsan survey-ga qaada oo macluumaadkiina insha Allah soo buuxiya hadda doonaysaan inaad course-ga aad ka qayb qaadataan khayr badan baan idin rajeynayaa assalaamu calaykum wa rahmatullah